11 jirka Tayo ee ku nool Indonesia wuxuu ku dhashay lugo la'aan iyo gacmo la'aan. Hooyadiis marnaba kuma fogaanin xaaladiisa markii ay xaamilada ahayd iyo xataa kolkii ay umushay kadib. Waxaan moodi jiray inuu cunug caadi ah yahay sida ilmaha kale. Umulisaduna wax war ah ima sheegin. Waxay kaliya igu tiri waa caadi, wax kale ma jiraan. Wuu safiicnaa, bad qabay, caadi ayuuna ahaa. Waxaa la ii sheegay galabtii dambe maalintii aan dhalay kadib oo ahayd goor habeen ah. Aad baan ula irkagay, ula yaabay xaqiiqdii. Hadda caadi ayaan ku ahay, waana ku qaatay qadarka Eebe. Kolkii hore qoyskani waxay deeq kaalmo ah ka heli jireen dawladda. Waa hore waanu ka heli jirnay. Hadda samaya oo sanad wax ku dhow wax kama helin. Mid ka mid ah shanteeda caruur, Tayo wuxuu gaar ugu koray guriga maadaama ilmaha kale ay ku nool yihiin dibadda. Sidaas darteed waalidiintiisa oo kaliya ayaa xanaaneeya. Maalin walba ayaanu daryeelnaa, meelna kama aadi karno. waxaa Tayo u aadaa dugsi wax loogu dhigo dadka baahiyaha gaarka ah qaba, waana fariid ku fiican tacliinta. Alxamdulillaah, waa maskax furan yahay inankayga. Maadada xisaabtana aad ayuu u jecel yahay. Buunta fiican ayuu ka keenaa maadooyinka xisaabta iyo tarbiyada islaamka. Mana xuma natiijooyinkiisu. Waa meeqo mugga lacagta tirsiga koobaad. konton IQ-giisu waa mid sarreeya, waana arday fariid ah. Casharada fasalka afraadna aad ayuu ula qabsan karaa. Xisaabta marka laga hadlayana wuxuu ka shaqayn karaa isku dhifashada iyo qaybinta, inkasta oo weli fasalka labaad uu ku jiro. Adeegsiga afkiisa marka uu wax qorayo, Tayo wuxuu sidoo kale garkiisa u adeegsadaa inuu ku dheelo video game-ka goorta uu firaaqada haysto. Marka uu qubaysto wuxuu dheelaa PlayStation-ka ilaa macallinku ka joojiyo. Iskuulka kadibna wuu dheelaa mar kale. Micnaha maalin walba dugsiga kadib waa inuu ciyaaro. Inkasta oo uu wajahayo caqabado ka badan midka haysta 11 jirka caadiga ah, haddana waxaa ka go'an inuu nolosha horay ugu socdo oo aanu isdhiibin.